gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ahna wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya mudane Axmed Shide ayaa soo gaaray magaalada Jigjiga waxaana garoonka diyaaradaha Garadwilwaal si diiran ugu soo dhaweeyay dhammaanba kaabineedka deegaanka oo uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar wadayaal dhaqameedka waxgaradka dhalinyarada iyo kooxaha fanka iyo suugaanta socdaalkan gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya mudane Axmed Shide ayaa daba socda soo gabagabayntii kala aragti duwanaanshihiisa siyaasadeed ee dhawaan soo kala dhex galay maamulka sare ee deegaanka iyo gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida kadib markii si diiran loogu soo dhaweeyay gudoomiyaha garoonka diyaaradaha Garadwilwaal ayaa waxa loo soo kixiyay dhanka iyo qasriga madaxtooyada deegaanka waxaanu halkaasi kulan kula qaatay kaabineedka deegaanka kulankan oo si wada jir ay u hogaaminayeen madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya mudane Axmed Shide ayaa waxa ugu horreyn loogu soo bandhigay kaabineedka deegaanka ismaandhaafkii siyaasadeed ee dhawaan hareeyay deegaanka iyo sidii loo xaliyay waxaana sidoo kale lagaga wada hadlayay sidii loo dardargelin lahaa howlaha horumarineed ee deegaanka si buuxdana adeeg hufan oo loogu siin lahaa shacabka iyo sidii loo dabooli lahaa adeegyadii bulsho ee baaqday xilliyadii isbeddelku ka dhacay deegaanka ee sanad miisaaniyaedkan lagu guda jiro waxaana la isla qaatay in meel looga soo wada jeesto saboolnimada dib u dhaca musuqa nabadgelyo darrada iyo adkaynta midnimada kadib markii uu soo gabagaboobay kulankani ayaa waxaa si wada jira saxaafadda ula hadlay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ahna wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya mudane Axmed Shide in kala aragti duwanaanshihi maalmahan jirtay la soo afjaray arintaas si baaratay si buuxda looga cadeeyay shacabkana gudoomiyuhu uu magaalada Jigjiga yimid wuxuu saaka kulan la yeeshay odayaal dhaqameedka waxa kale oo kulan ay yeesheen golaha fulinta ee kaabinega deegaanka waxaana si buuxa la isku afkartay in la sii dardargeliyo hawlihii horumarineed adkaynta nabadgelyada iyo waliba reformka xisbiga iyo dawladda in la sii xoojiyo oo sidii uu ahaa dardar la sii geliyo yaa la isku afkartay wixii keenayay muxuu ahaa istaandarada keenayay xagga day noqoto xagga miidiyaga armihii gelay wixiina si buuxda in maartay loo joojiyo laga hortago yaa la isku afkartay arrimaha ugu muhiimsan maanta lagu heshiiyay kuwaas ahayn waxaan rajaynaynaa in arrintan ay noqoto mid cashiro fara badan laga bato dadka Soomaaliyeed maanta midnimo u baahan yahay wuxuu u baahan yahay isku duubni wuxuu u baahan yahay horumar iyo wax la qaybsado shucuubta kale ee Itoobiya arrintaasna waxa suurta gelin karta haddii hogaaminta sare ay midaysan tahay marka midnimadu way jirtay way fiicneyd laakiin maalmihii u dambeysay xoogaa tashuush fara badan soo dhexgalay baa jira kii in la saaro laga baxo qacmaha la qasqado ayaan ku heshiinay aad baad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim waxaanu maanta si wada jir u galay golaha kaabineedka deegaanka Soomaalida iyo odayaal dhaqameedka deegaanka ayadoo aan ka wada hadalay dhawaanahan madmadowgii hogaaminta sare soo gashay iyo khilaafaadkii ka aburmay sidii loo soo afjiray iyaan hogaaminsan ahaan baan ugu cadeynay odayaasha iyo dhammaan xubnaha kaabineedka waxaa la ogsoon yahay isbedel guud dalkoo dhan inuu ka socdo iyo deegaankaba isbedelkaas siduu ku waari lahaa hogaamin midaysan oo shacabka mideeya isbedelka la wadana siduu sii xoogaysan lahaa waxyaabaha looga baahan yahay ayaan ka wada hadalay marka ayadoo reformka shaqooyinka dawladeed la sii xoojin doono reformka xisbigana in muhiimad weyn ay leedahay aan sii adkeyn doono ayaa laga wada hadlay marka cabinet inuu si buuxda u shaqo galo shaqooyinkiisa horumarinta caadiga iyo maamulka suuban ayaa laga wada hadlay taas marka waa la sii xoojin doonaa xagga odayaal dhaqameedkana si wada jir midnimada ummadda Soomaaliyeed sidii loo ilaalin lahaa isbedelka deegaanka ka hirgelay sidii u xoogaysan lahaa hogaamin midaysan ummadana si buuxda u hogaamisa in khilaafaadka jirana si sharci iyo nidaam mar walba lagu xaliyo ayaa lagu sii adkeeyay taasna marka midaan sii xoojin doono
shacabka waxaan faraynaa in nabadgelyada iyo shaqooyinka horumarinta iyo maamulka suuban in la sii xoojin doono shaqooyinka xisbiga reformka shaqooyinka dhimanna in la sii dhameystiri doono ayaanu cadeynayna waad mahadsantiin hal maalin ka hor ayuunbay ahayd markii madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar uu ku soo laabtay deegaanka isagoo muddo dhowr maalmood ah kaga maqnaa deegaanka hawlo shaqo ay ka mid ahaayeen isla meeldhigida ismandhaafkii siyaasadeed ee u dhaxeeyay hogaaminta sare ee deegaanka iyo gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya Mudane Axmed Shide taasi ayaanay daaran tahay socdaalkan uu maanta gudoomiyuhu ku yimiday deegaanka